Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maalin wanaagsan akhyaarta wadaniga la xiriirtay. Halkan waa bartaan YouTube-ka ku leenahay. Maantana waxaan kusoo qaadan doonaa Inna Lillaahi wa Inna Ilayhi Raajicuun. Abwaanka weynaay oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa, Abwaan Hadraawi, oo dadka Soomaaliyeed intooda badan ay garanayaan, waxaa ku geeriyooday maanta magaalada Hargeysa. Ilaahay ha u naxariisto. Abwaan Hadraawi waa la yaqaanaa, waa nin taariikh ku leh ummadda Soomaaliyeed, waa nin abwaan ahaa oo hal abuur ahaa, muddo fara badanna kusoo dhex jira fanka iyo hal abuurka iyo riwaayadaha iyo taariikhda ummadda Soomaaliyeed. Marka waxaan leenahay Abwaan Hadraawi, Ilaahay ha u naxariisto, maanta ku geeriyooday magaalada Hargeysa. Abwaanka wuxuu muddo badan kusoo dhex jiray fanka iyo abwaannimada. Marka wuxuu ugu dambeyn ku geeriyooday maanta magaalada Hargeysa. Xanuuno ayaan hayay. Da'diisana waxaa lagu sheegay in 79 sano inuu jiray. Abwaanka Abwaan Hadraawi, Ilaahay ha u naxariisto. Ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan u tacsiyenayaan. Marka tacsidaas haddii aan ka gudubno, waxaa laleeyahay waxaa gacanta lagu soo dhigay ninkii gabadha masaakiinta ah ku dhibaateeyey magaalada Muqdisho, gaar ahaan agagaarka ceelasha biyaha, kaasoo gabadha xalay habeen hore gabar ku dilay magaalada Muqdisho. Ninkaas ayaa ciidamada booliiska gacanta ay kusoo dhigeen. Howlgal ayay ka sameeyeen deegaanka ceelasha biyaha ayaa gacanta lagu soo dhigay. Eedeysanahaasi oo loo haysto inuu ka dambeeyey dilka Allah u naxariistay Hibo Qaasim Maxamed, oo ahayd gabar ardayad ah, kadibna ku baastay imtixaanka dowladda ee iskuulka dowladda ay dhiganaysay. Marka ugu dambeyn gacantii ayaa ninkaas lagu dhigay, baaritaan ayaana ku socdo. Marka ninkaas eedeysanaha waxaa lagu magacaabaa Jeylaani Aadan Abaadir. Marka kaasoo wareysi lala yeeshay ku qirtay inuu dilay marxuumad Hibo Maxamed Qaasim. Ilaahay ha u naxariisto gabadhaasi. Taliyaha qaybta galbeed ee ciidanka booliiska ee gobolka Banaadir Yaasiin Ganay ayaa la hadlay wariyaasha, ayaa sheegay, wuxuu ka warbixiyey in ninkaas iyo dadkii la socday gacanta lagu soo dhigay. Marka ninka gacantiisa gabadha ku dilay waa ninkaas ayaa la leeyahay. Marka ninkaas waxaa lagu magacaabaa, sawirkiisa meesha ayaa ka arki doontaan. Ninkaas waxaa lagu magacaabaa Jeylaani Abaadir. Marka waxaan leenahay Ilaahay ayaa mahad iska leh, maadaama gacanta lagu soo dhigay eedeysanaha dhibaatada faraha badanna gabadhaas u geeyey, nolosheedana dhaafiyey. Gabar ardayad ah oo hadda ka qalin jebisay iskuulkii imtixaanka dowladdana ku baastay, oo darajadii ay ka gudubtay darajo kale u gudubtay, dadaal fara badanna muujinaysay. Marka farxadda horta waa murugo. Gabadhaas way dhimatay, Ilaahay dhankiisa ayayna aaday. Marka Ilaahay ha u naxariisto. Laakiin gacanta in lagu soo dhigay naftigeeda waa farxad, sababtoo gacan ku dhiigle si xaqdar ah gabadhaas ku dilay, kadibna moobaayl ka qaatay oo ka dhacay. Waxaa laga yaabaa in maandooriye iyo balaayo ninkaas oo isticmaalayo gabadhaas darteed ay u dhimatay, kadibna moobaylkii uu ka dhacay, dilna ugu sii daray. Marka Jeylaani Aadan Abaadir waxaa laleeyahay waa nin moobaylada dadka ka dhaca, oo dadka u dila moobaylada. Marka dad horena waxaa laleeyahay waa lagu tumayaa, laakiin xaqiiqda waxaa la dhahay waa midda hadda ugu dambeysay, taasoo gacanta lagu dhigay inuu gabadhaasi ku dilay. Marka sidoo kale wuxuu tilmaamay inay u gudbin doonaan hay-adaha dowladda, CID-da baaritaan dheerna ku sameyn doonto. Inkasta uu qirtay, haddana waxaa loo baahan yahay in la xaqiijiyo oo baaritaan dheeraada lagu sameeyo. Dadka qaar waxay leeyihiin ninkaasi haddiiba gacanta lagu soo dhigay waa nin gacan ku dhigla, waa in dil toogasho lagu xukumo. Laakiin go-aanka waxaa iska leh ugu dambeyn maxkamadda gobolka Banaadir ayaa la saari doonaa, ayagaana go-aanka gaari doono. Oo ugu dambeyn waxaa laleeyahay min qof dilay, horey ayaa loo sheegaa nafsu binafsi waaye, in qof markuu dilo la dilo, qofka ilig bixiyana ilig laga bixiyo, qofka il ridana il laga rido. Shareecada Islaamka ayaa qabto gabadhaasiba Allah u naxariisto, wayna dhaaftay, inuma soo laabanayso. Laakiin gacan ku dhiglihii gacanta ayaa lagu soo dhigay. Dadka Soomaaliyeedna way ku faraxsan yihiin arrintaasi. Qofkii qof dila haddii la dili lahay, waxaa waaye isheeg waa fiicnaan lahayd. Marka Ilaahay mahadiis ayay ku dhacday in ninkaasi gacanta lagu soo dhigo, ugu dambeynna isheeg lagu qabtay. Haddii aan taas ka gudubno, waxaa maanta ayadana suuqa loo yaqaano degmada Dharkiile, suuq Boocale loo yaqaano, ayaa maanta waxaa ka dhacay gubasho. Suuqa aad iyo aad ayuu u gubtay. Suuq Boocale waa meel suuqa la isugu tago, dad fara badan ayaa garanaya suuq Boocale. Marka dabka ayaa ka dhashay koronto sida la sheegay, wuxuuna baabi'iyey goobo ganacsi oo aad u fara badan, iyo wuxuu baabi'iyey hanti dad masaakiina ay lahaayeen, oo suuqa aad ayuu u gubtay. Marka mid ka mid a ganacsada oo la hadlay TV-yada magaalada Muqdisho, gaar ahaan TV-ga Shabeelle, ayaa shaaciyey inay ugu yaraan ay gubteen ugu yaraan 30 ilaa 50 dukaan oo ku yaalay halkaasi, kuwaasoo la leeyahay ayagana way basbeeleen. Marka ummadda Soomaaliyeed waxaa leenahay Ilaahay ka badbaadiyo dhibaatadaasi, gubashadaas iyo hantidaasna Ilaahay ha u soo celiyo, bedel kheyr qabana Ilaahay ha u keeno. Mar walba dhacda gubashadaasi suuqyada, dadaalka waxaa waaye faraha badan dadka ay sameeyaan, haddana waxaa laleeyahay weli waa xagga Alle ka qoran, qadarna way ku dhacday. Marka waxaan leeyahay Ilaahay hantidiina ha idin badbaadiyo, intii ku hanti baashana Ilaahay hantidooda bedel kheyr qaba ha siiyo.
marka suuqa waxaa laleeyahay korontadaas ayaa gubtay oo ay kasoo gaartay dhibaatadaasi. Marka mar walba way dhacdaa, marar hadda kahor suuq bacaada gubtay, suuq waxaa gubtay maxaa la dhahaa bakaaraha marar badan gubtay. Marka hadda dadka waxay isku dayaan mar walba markay suuq gubto 2 jeer 3 jeer ay kusoo laabato waxaa laga dhigaa sar si gubashada hadhow xadidkeeda u yaraado. Laakiin jiingadaha suuq bacol waxay u badnaa jiingadaha iyo carshaanta ay u badnaa. Marka aad iyo aad ay mar walba u gubtaan jiingadaha, saas ayaa dhibaatadii kusoo gaartaa. Marka waxaa laleeyahay suuq bocle wuu gubtay. Marka dadkii ku hanta beelan waxaan leenahay ilaahay ha idinkugu bedelo wax kheyr qabo. Waxaana laga dadaali doonaa insha Allah suuqa in la dhiso, kadibna dowladdu ay ka caawiso sidii suuqaas uu ku dhismi lahaa. Marar badan ayaa Afgooye iyo meelo kale iyo Hobyo iyo maxaa la dhahaa Gaalkacyo iyo dab uu ka dhacay Hargeysa waa xasuusanaa. Marka waxaan leenahay ilaahay dadkaasi ayagana hantidooda ha u badbaadiyo. Wixii oo meeshaas ka dhacayna suuqa waxay u baahan yihiin dabdamisyaal, waxay u baahan yihiin dad joogto ah. Soomaalida way isku gurmataa, dad isku gurmado waaye. Laakiin inta badan waxaana ku filnayn dadka, waxayna ku filnayn dabdamisyaasha. Sababta dabdamiska hadduusan meesha diyaar ku ahayn waxaa fiican magaalada Muqdisho 18 degmo waaye. Degmada Kaxda ayaa gadaal loogu daray. Marka 18kaas degmo waxaa fiican degmo walba ugu yaraan hal dabdamis inuu joogo. Haddii aan la heli karin 2 dabdamis, degmo walba inay joogto hal dabdamis xataa ugu yaraan degmadan la dhaho degmadan adiga aad ka tirsan tahay maxaa la dharkiinley ay ku qoran tahay, waa inaad gacanta ku dhigtaan haddii dab yimaado mar walba u dhici karaa. Isla marka horta emergency kasoo gaar kuwa kale 17 kale ha u gurmadaan ayagana. Marka waxaa leeyahay gobolka Banaadir oo dhan waxay haystaan ugu yaraan 4 dabdamis bis ay haystaan, wax kale ma haystaan. 4 dabdamis waa wax aad u yar. Dowladda ayayna hoos tagaan. 4 dabdamis meel ay ka caawin karto malaha. Haddii hal meel isugu tagaan way caawin karaan, laakiin dee magaalada 4teeda gees waa magaalada waa weyn tahay, waa 19 kilomitir oo geeskan ay 19 kilomitir oo gees kale taa. Waa meelo aad u fog waaye, waa wax isku dhow ma ah. Marka waxaa leeyahay dabdamiska hala badiyo. 18 degmana laga sii mid walbaba ugu yaraan 2 dabdamis ama hal dabdamis ha lagu diyaariyo. Turkiga ayay saaxiib leeyihiin Soomaaliya, dowladda Soomaaliya waxay saaxiib leeyihiin Qatar, waxay saaxiib leeyihiin Talyaaniga, waxay saaxiib leeyihiin wadamada kale ee ayagana dariska ah sida hadda Kenya oo kale. Waxaa ayagana dabdamiskooda waa badan yahay oo aad iyo aad ay ugu taxadiraan. Marar far badan magaalada Nairobi aan ku sugan waa arkay xataa in dabdamiska isla markii 2 3 ay imaanayso markii uu ka dhaco deegaanka Soomaaliya degto Kamunguji oo kale, isla markiiba dabdamis ayaa imaanaya. Marka waxaa loo baahan yahay in laga taxadiro. Dowladda haddaysan haysanin dhaqaalahaasan inay weydiisato dabdamis fara badan. Meeshan waa koronto, korontadana waxaa hadday taabato jiingada iyo ganjeelada waxaa waaye horay dabka qabsanaysaa. Marka dadaalka ha laga badiyo. Dowladda Sheekh Maxamuud waxay u sheegi lahaa in wax ka bedelaan, u soo dadaalaan dadka masaakiinta oo dhibaataysan. Awal abaaro iyo dhibaato kale haysatay, haddana waxaa ugu sii darsantay maxaa dabdamis la'aan iyo daba ugu sii darsamay. Marka ummadda Soomaaliya meel walba ka dhibaataysan tahay. Waxaan leenahay ilaahay ummadda ha badbaadiyo, wixii dhib iyo sharkoodan ilaahay ka qabto. Anagana waxaan leenahay bahda saxaafadda haddaan nahay waan guwaabinaynaa in dabdamiska la badiyo, in laga dadaalo tuugada iyo dhibaatada dadka ku haysana la qabto. Marka aan hadda magaalada Muqdisho waxaan ku suganahay muddo hadda 3 usbuuc ka badan. Marka waxaa waaye waxyaabaha dhibaatada hadda oo la sheegayo meelaha qaar inkastoo ay ka jirto oo tuugada meelaha qaar aniga waan tagay, laakiin Kaaraan iyo Dharkiinley weli ma tagin. Waa meelaha oo laga sheego ciyaalka burcadda ah, laakiin magaalada inteeda kale waxba dhib kuma arkin. Si caadi ah bakaarahan tagay, meel walbaan tagay, Xamarweynahan tagaa, meel walba waxaan tagaa suuq bacaad, meel kastaan tagaa. Magaalada meel aan tagin ma laha. Marka laakiin Kaaraan iyo waxa ii dhiman iyo Dharkiinley dhankaasna wax dana igama soo gelin, maadaama nin iska shaqaysto isku YouTuber aan nahay. Wax dana hadda gooni iga soo galay ma lahan, laakiin waa laga sheegaa magaalada aad looga sheegaa dhibaatada iyo xagga amni darrada. Marka amni darrada hadday isugu darsantay iyo gubashadana dhibaato waaye. Marka waxaan leeyahay saxaabay waa mahadsantihiin la socodkeena barnaamijkeenan. Waxaan idinka codsanayaa YouTube-keena subscribe-ta iyo like-ta iyo share-ta nala wadaagtaan. Tan iyo kulantada dambe oo xiiso leh waad ku mahadsantihiin la socodkeena. Sidaas iyo nabadgelyo.